بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن وناكسن إذ الكيمبا هالكني ومغن ميديا وكوبيو طوانك بشان نوفمبر سنة لابد كونيو شانيا لاباتنك جبهة أورامدا لوجو مجا أولا ومدوي كي قدام بيسوا ورّيت هيك قاديسي دتك الصوماليات كنا جودهم بدل ديانك الصوماليدا جارهان قبل ذا حدود سجارة ديانك أما قبل كلوجو مجا سيتي ayaa markan waxa ay weerar ku ekeeyeen gawaari xamuulka qaada oo markaasi soo kala guushaysay magaalooyin kala gedsan gobolka Shabeelle ama City loo yaqaano iyo sidoo kale magaalada ismaamulka ee Soomaaliyeed ee Diradaba waxa lagu soo waramayaa in gawaari gaaraysa ilaa iyo 3 gaari sidoo kalena ay la socdeen dad Soomaali ah iyo sidoo kale dad qoomiyadaha kale ee dalka Itoobiya ka soo jeeda ay jabhadani ay afduubatay wararka aanu halkaas ka helena waxa ay noo xaqiijiyeen in jabhadu ay tilmaantay inay dadkaas iyo gawaaridaba ay ka rabto madax furasho lacag waxaana arintan loo sababeeyay in jabhadu ay doonayso inay dhaqaalo ay ka urursato shacabka Soomaalida oo la tilmaamay markaasi in Itoobiyaanka kale marka lacag bixinta ay timaado ay kaga horeeyaan jabhada Oraamadana waxa ay doonaysaa dhinaceeda inay shacabka Soomaalida ka baado dawladda uu hogaamiyo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar ayaa ilaa iyo hadda waxa ay ku guul daraysatay inay wax ka qabato soo noqnoqoshada weerarada kala geedsan ee jabhada Oraamada ee Ola markaasi ay ka sameynayso gudaha deegaanka Soomaalida waxa ayna wararku noo xaqiijiyeen in jabhadu ay si toos ah ula xiriirtay shakhsiyaadka gawaarida markaasi ay afduubteen iska lahaa iyo sidoo kale kuwa alaabaha kala geedsan ee markaasi gawaarida lagu waday markaasi ay la xiriireen weydiisteen inay bixiyaan lacag markaasi madax furasho sidoo kale wararka aanu gobolka ka helayno si gaar ah degmada Erar oo la tilmaamay in tuulooyin hoos yimaada degmadaasi ay gawaarida ka afduubteen jabhadu ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in qaar kamid ah gawaaridii ay jabhada Oraamada ee Ola ay markaasi afduubatay ay soo deysay kadib markii lacagihii ay ku xujeysay in la bixiyo shakhsiyaadkii gawaaridaasi iska lahaa iyo kuwii u raraayeen ay iska bixiyeen warbixinadan waxa ay sidoo kale noo xaqiijiyeen in dawladdu ilaa iyo hadda ay ka jiifto oo aysan baaris iyo sidoo kale dabagalba ku sameeynin halka ay gawaarida jabhadu ku hayso maadaama la raad qaadi karo saaxiibayaal waxyaabihii ugu dambeeyay ku saabsan afduubashada iyo weerarada kala gedsan jabhada Oraamadu ay ku soo qaadayso deegaanka Soomaalida ayaan warbixinteena idin kula wadaagi doonaa waad ku mahadsantihiin la socodka barnaamijyada Magan Media ku xirnaada oo haddii aad nagu cusub tahay subscribe ku samee barteena YouTube haddii aad hore noola sii joogtana muuqaalkan la sii wadaag saaxiibada sidoo kalena sii share gare like-na saar si uu meel dheer u gaaro Facebook-geenana soo follow garay aynu ku bilownaa jabhada Oraamada ee loo yaqaano jabhada Ola oo sheegata inay xornimo gaarsiinayso shacabka deegaanka Oraamada ayaa muddooyinkii u dambeysay waxa ay weerar ku ekeenaysay gobollo ka tirsan deegaanka Soomaalida si gaar ah gobolada Shabeelle iyo sidoo kale gobolka Faafan oo markaasi tuulooyin iyo degmooyin hoos yimaada ay weerar ku qaadaysay warbixino hore oo halkan aan kula wadaagnay waxa ay xaqiijinayeen ama ay cadeynayeen in markaan jabhada Oraamada ee Ola ay shacabka deegaanka Oraamada iyo mas'uuliyiinta deegaankaasi ay iska soo horeysiinayaan ajandaha guud ee markaasi jabhadu ay deegaanka Soomaalida u soo weeraraysaana ay tahay laba qodob dhaqaale inay ka urursadaan deegaanka iyo sidoo kale inay ay meel mariyaan qorshaha ay Oraamadu markaasi istuseen inay qabsan karaan deegaano markaasi ka duwan kuwii hore deegaanka Soomaalida uga qabsadeen degmada Erar ee markaasi ka tirsan gobolka Shabeelle ama City qofba sida uu yaqaano waxa laga afduubtay gawaari la tilmaamay inay gaarayaan ilaa iyo 6 gaari kuwaas oo la sheegay inay ka soo baxeen magaaladaasi sidoo kalena ay u socdeen dhinaca maamulka ama ismaamulka magaalada Diradaba oo ay markaasi xamuul iyo agab kala gedsan ay u sideen sida la tilmaamay jabhada oo la sheegay inay la xiriirtay shakhsiyaadkii iska lahaa gawaaridaasi iyo sidoo kale dadka gawaarida saarnaa eheladooda ayaa waxa la sheegay inay lacago kala gedsan oo madax furasho markaasi ay jabhadu weydiisatay shakhsiyaadka gawaaridaasi iyo agabka kala gedsan iyo dadka saaranba markaasi xidadka la ahaa waxaana la tilmaamay in dawladda deegaanka Soomaalida ee uu hogaamiyo Mustafa Maxamed Cumar iyo tan dawladda federaalka ee ciidamada militariga ilaa iyo hadda aysan wax tallaabo ka qaadin jabhadaasi waxa la yaab kale ayaa waxa ay tahay jabhadu deegaanka Soomaalida gudihiisii ayay waxay ku afduubatay gawaari
gawaarida isla deegaanka Soomaalida dhexdiisa qaybo kamid ah oo dhulka buuraleyda ah ee kala qaybiya ismaamulka Dirdhaba iyo sidoo kale deegaanka Soomaalida ayaa la tilmaamay inay ku hayaan ilaa iyo hadda waxyaabaha ay dadka shacabku isweydiinayaan ayaa waxa ay tahay dawladuna aysan wax wara ka soo saarin sababta dawladdu ay maadaama ay ka ciidan badan tahay jabhadan oo shakhsiyaad ama kooxo kaliya oo markaas si dhuumaalaysi ah u soo weeraray dadka ay jabhadu tahay dawladuna ay intaas ka ballaaran tahay ciidamo tiro badan ay deegaanka Soomaalida ka joogan gobolka City ciidamo dawladda federaalka ka tirsan gobolkaasi ay joogan xarunta ciidamada dalka Itoobiya xilligan lagu tababaro ee lagu magacaabo Huursana ayba ku taalo meesha ay wax ka afduubanayaan ama weerarada ka geysanayaan ka agdhowna markaas sababta ay gawaaridaas intii loo raad qaado maadaama raadka gaarigu uusan isqarinaynin uu yahay gaarigu haddana mid culus oo rar wada markaas sababta ilaa iyo hadda waxa la isweydiinayaa dawladdu aysan tallaabo u qaadin miyay la ogtahay oo markaas qaybayba ka tahay in shacabka Soomaalida la dhibaateeyo mise dan iyo xaaje ayaysan ka lahayn in ay markaas shacabkii ay u dhaarteen ay markaas kala shaqeeyaan sidii loo soo badbaadin lahaa dhinaca kale xogo cusub oo aanu ka helayno isla degmada Erar ee markaas tuulada hoos timaada ee lagu magacaabo Garmaan ee gawaaridaas laga afduubtay naga soo gaarayaan waxa ay noo xaqiijiyeen in markaasi dirawaladii waday mid kamid ah gawaaridii saddexda ahaa ee ay jabhada hubeysan ee Ola markaas ku afduubatay qabalaha Garmaan ee degmada Erar oo gobolka City markaasi la soo daayay gaarigan waxa waday baa leeyahay dirawal Soomaali ah iyo sidoo kale qof kale oo Soomaali ah oo la socday kadib markii ay jabhada Ola afduubatay waxa ay ku xujeeyeen in la bixiyo lacag madax furasho oo gaaraysa 1.5 milyan ama 1,500,000 oo lacagta birta ah waxaana la tilmaamay in qowsaskii iyo sidoo kale dadkii gawaaridaas iska lahaa wiilasha Soomaalidu ay wadeen lacagtii 1,500,000 ahayd ee ay bixiyeen sidaasna markaas lagu soo daayay laba gaari oo kale oo la tilmaamay inay wadeen dad kaga soo jeeda qoomiyadaha kale ee dalkaasi Itoobiya ayay wali jabhadu la tilmaamay inay gacanta ku sii hayso oo aysan sii deynin taas oo muujinaysa in Soomaalida markaas iyagu ay si gar ah u garwaaqsadeen inaysan jirin cid ka daba imaanaysa inaysan jirin dawlad markaas wax u qabanaysa inaysan jirin markaas cid kala hadlaysa jabhadan Ola ee markaas xoolahoodii dadkoodii iyo gawaaridoodiiba markaas gacanta u galeen waxayna Soomaalida ku qasbanaatay inay markaas iska bixiyaan lacagta madax furashada ah ee jabhadu markaas weydiisatay tani waxay ceeb ku noqonaysaa dawladda Mustafa Maxamed Cumar Mustafa Cagjar oo muddooyinkii u dambeysay ka gaabinaysa inay ilaaliso shacabka ku nool gobolka Shiniile iyo sidoo kale kan faafan ee magaalada Jigjiga ee xarunta u tahay jabhada Oromada ee Ola ayaa muddooyinkii u dambeysay waxa ay weeraraysay degmooyinka Tuluguuleed Dambal iyo sidoo kale degmada Erar iyo waliba degmada Shiniile ee markaas xarunta gobolka City ah waxa aana muuqanaysay inay marba marka ka dambaysa weerarada ay ku ekeenayaan degmooyinka iyo sidoo kale dadka Soomaaliyeed ay si laba jibaarayeen horey ayay ahayd markii gawaari kale oo mareysay jidka isku xira dalka Itoobiya iyo sidoo kale dalka Djibouti ay markaas saacado kooban ay qabsadeen halkaasina rasaas iyo sidoo kale jidgooyooyin ay u geysteen gawaarida xamuulka qaada ee isugu kala gooshta labada dal dhinaca kale jabhada Oromada ee Ola waxa ay si cad u tilmaantay inay markaas doonaysaba inay qabsato jidka isku xira Itoobiya iyo Djibouti oo markaas ah il dhaqaale oo ay dawladda Itoobiya ku tiirsan tahay jabhadan Oromada ee Ola waxay hadda si cad u sheegatay ama waxa markaas talaabooyinka ay qaadayso u muujinayaan in waxyaabaha ugu muhiimsan ee Soomaalida loo weeraray ay tahay in dhulkoodana la qabsado sidoo kalena dhaqaale laga urursado Itoobiya guud ahaanteedaba waxa ka jira dhaqaale xumo aad u ballaaran si gaarana deegaanada Oromada xabashida iyo sidoo kale dalkaasi Itoobiya si guudba waxa uga jira dhaqaale xumo aad u ballaaran lacagta dalka Itoobiyana sanadihii la soo dhaafay waxa ay saaid ugu sii dhacayso hoos in waxa la tilmaamay $100 inuu gaarayo 18,000 oo lacagta wadankaasi taasi oo muujisay in xaaladdu ay adkaato si guud marka jabhadii Oromada ee Ola iyada laftirkeedu saameyn dhaqaale ayay ku yeelatay ayaa la leeyahay xaaladda Itoobiya ee si xumaanaysa dhanka dhaqaalaha
taas ayaana sababtay inay raadiso meel ay markaasi ku canshuurto ama ay lacago kaga qaadato dadka waxayna arintaasi marka u soo baxday ayaa la leeyahay inay qabsato jidka isku xira markaasi Dirdhaba iyo dalka Djibouti halkaas oo la sheegay in 50% dhaqaalaha dalka Itoobiya uu maro marka loo fiiriyo ganacsiga kala gedsan ee dalka Djibouti markaasi agabka uga soo dago dawladda Itoobiya iyo ganacsiyada kala gedsan ee dalkaasi Itoobiya ee wax dhoofsado iyaguna jidkaasi isticmaala jabhadda Oromada ilaa iyo hadda tallaabo ay ciidamada dawladdu ay qaadeen oo ay gawaarida ku soo badbaadiyeen lama xaqiijin lamana sheegin waxa ayna markaasi sii maraysaa in ka badan 12 saacadood markaasi xaaladdu ay sii taagnaato waana sababta ayaa la leeyahay in dadka Soomaaliyeed ee markaasi gawaaridoodii iyagaba la qabsaday ay lacagta ay jabhaddu markaasi ku xujeysay ay iska bixiyeen taasoo cadeynaysa rajo xumida maamulka deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale guud ahaan dalka Itoobiya jabhadda Oromada ee Ola waxa ay doonaysaa inay saameyn ku yeelato guud ahaan deegaanka Soomaalida gobolka Faafan oo magaalada Jigjiga ay xarun tahay dawladii Mustafa Cagjarna inteedu ugu badnayd ayba joogto isaguna uu ku shaqeeyo degmooyin hoos yimaada Jigjiga ayaa dabcan ay weerar jabhadu ku qaaday ilaa iyo haddana weerar rogaal celisa oo ay ciidamada dawladdu sameeyeen lama sheegin marka laga yimaado kuwa ismaamulka Dirdhaba oo siyaabooyin kala duwan u sheegtay iyagu inay jabhada weerar ku qaadeen jabhadan Oromada Ola deegaanka Soomaalida weerarada ku qaadaysay ayaa dhinaca kale waxa la tilmaamay inay ka soo duulaan dhinaca ismaamulka Dirdhaba gaar ahaan buuraleyda dhinaca galbeed magaalada ka xiga halkaas oo la sheegay inay basaldhigyo ku leeyihiin sida warar madax bannaan ay noo xaqiijiyeen hadda dhacdadan waa dhacdo kale oo uguba waxaana halkaas ka cadeynaysaa in jabhadda Oromada ee Ola ay dhaqaalaha ummadda Soomaaliyeed u soo jeesatay markii ay ogaatay cid markaas yac ka dhahaysa ama ka celinaysa inaysan jirin dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan xafiiska nabadgelyada iyo sidoo kale kan ciidamadu dhacdadan foosha xun ee dadkii Soomaaliyeed hantidooda lagu dhacayo kama aysan hadlin dhawaan ay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya uu si cad u sheegtay in Oromadu ay Dirdhaba iska leedahay arintaas oo dad yar mooyeen dawladda Mustafa Maxamed Cumar aysan wax wara iyo sidoo kale taariikhda laga been sheegay waxba ka sheegin iyadoo aan la socono Dirdhaba inay xilli ahayd magaalada caasimadda waa deegaanka Soomaalida sida horeyba taariikhdaasi loo sheegay saaxiibayaal waxa muuqata in jabhadaha ka dhaqdhaqaaqa dalka Itoobiya markan ay doonayaan inay Soomaalidana saameyn ku yeeshaan deegaanka Soomaalida 8 sano u dambeysay wax jabhadi kama ay dhaqdhaqaaqin taasoo sababtay kadib markii 2018 markaas jabhadda Onalif ama Jooxa loo yaqaan ay dawladda Itoobiya markaas la heshiisay iyadoo ona ahayd jabhadda ugu dambeysay ee gudaha deegaanka Soomaalida markaas siyaabooyin kala gedisan uga dhaqdhaqaaqaysay jabhadihii deegaanka Soomaalida markii ay dawladda qaarkoodna la heshiiyeen qaarkoodna ay isdhiibeen wixii ka dambeeyay deegaanku waxa uu ahaa mid markaas dawladdu ay intiisa badan gacanta ku hayso iyadu waxa ay doonto iyo waxa ay jeceshahay in ay ka fuliso cid markaas kula xisaabtantana aysan jirin haddana waxaaba la iskala soo gudbay gudihii deegaanka marka waxa deegaankii Soomaalida soo weeraraya weerarana ku ekeynaya markaasi Oromadii ka soo duushay deegaankooda jabhadan Oromada ee Ola galbeedka bartamaha iyo dhinaca koonfureed ee deegaanka Oromada ayay dagaalo xoogan ciidamada dawladda iyo markaas deegaanka Oromada ka sameeynayay haddase waxa muuqata inay dhanka Soomaalida u soo jeesatay oo ay doonayso inay markaas dhinaca deegaanka Soomaalidana saameyn ballaaran markaas ku yeelato iyadoo dhinaca kale istustay in Soomaalidu ay yihiin bulsho markaas dhaqaalana haysa haddii la qabto la afduubtana dhaqaale kala gedsan markaas laga helayo ma jirto cid ku ilaalinaysa sharaftaada qiyamkaaga lacagtaada iyo sidoo kale dadkaagaba cid ku ilaalinaysa ma jirto haddii aad deegaanka Soomaalida markaas aad ku nooshahay waxayna arintan cadeynaysaa in xilli kasta weerar lagu soo qaadi karo dawlad iyo ciidanku difaacayana markaas aysan jirin naftaada iyo dhulkaaga iyo sharaftaada adiga ay markaas waajib kugu tahay inaad ilaashato maadaama xukunkii Mustafa Cagjar la iska kicin waayay intaas ayaan saaxiibayaal ku soo gabagabeynaya waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka barnaamijyadeena haddii aad hore noola sii joogtay muuqaalkan la garay sidoo kalena markaas ku soo biirbarteena YouTube-ka ee Magan Media oo subscribe garay sidoo kalena la sii wadaag saaxiibada si uu meel dheer u gaaro oo sii share garay nabadgelyo ayaan idin leeyahay intaan kulmi doono muuqaalkeena xiga insha Allah